dadka traditionalka dadka hadda haysta waa qodobka labaad dadku markaan ayaga asmaamulada dawladdu ma maamusho sidii wadanku u burburay caafimaadkuna u burburay systemkiina waa u burburay marka waxa haysta traditionalka wali haysta systemkii waa qodob de waxaan hadda iska socdaan waxa xakameynaa lama arko oo dabcan hawlaha guud oo haystaba kooda xalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mawduuca maanta laga hadlayo oo runtii ku saabsan faafidda iyo cudurrada faafa iyo sida bulshadu aysan uga wacyi ugu ahayn dabcan waxaan maleynayaa inta ugu badneed waxa ka soo hadlay saaxiibada ayaa ka hadlay hadda dib ugu laabo maayo laakiin laba source ugu muhiimsan oo ah cudurradu inay faafaan mas'uuliyaddeeda qaadaya waxa waaye wuxuu inay dad inta ka yimaadaan dad kale u gudbaan iyo inay xayawaanadii inta ka yimaadaan dadka u gudbaan iyo inay dadka inta ka yimaadaan xayawaanadii u gudbaan intaba waa inta horta la isku gudbiyo waxaan u maleynayaa adduunka marka la fiiriyo ayaan dhawada waxaan arkayaa iyada oo hindiya ay ka qaylinayso Soomaaliya oo culimadeedu inta isku tageen dadkeedii ay leeyihiin Soomaaliya ha loo gurmado Soomaaliya waa baaba'day ha loo gurmado dabcan waa arkaydaan amalaha idaacadaha iyo meel kasta soo dhigeen musiibo qaran waaye runtii waxaan aaminsanahay fikir kale oo ka duwan fikirka hadda jira oo ah dhibaatada dhanba waxa keenay sidii dabcan u burburay dawladda u burburtay shacabkiina u burbureen caafimaadka u burburay systemka dhanna u qaribmay marka hadda waxaan la garahaynba cudurradii la yaqaanay oo qornaay oo faafi jiray miyaa waxa socda mise waa wax kale research lama samayn jaamacadu kuma baraarugsana dawladdu kuma baraarugsana qolo ku baraarugsana ma jirto markii korka laga fiiriyo marka loo yaqaanay waxa saxda ah hadda jiraba waa aragtay hadda kansar loo dhimanaa wax faafa miyaa mise wax faafa xoosan lama yaqaano waa aragteen inkastoo meel marka laga fiiriyo oo yahay cudurro faafa kamid yahay hepatitis-kii oo kansarkii keenayo oo cudurro faafa kamid yahay dhanka marka loo fiiriyo asaga waaye laakiin exactly hadda waxa loo leeanayo waxa laga yaabaa inay tahay daawada wadanka la keenay taa laga yaabaa waxa keenaba dhibka inuu faafo dadku leeanayaan marka dadka hadda leeanaya lama yaqaan waxa saxda ah u leeanayaan waxaana keen waxa waaye research lagama samaynba marka taas meesheeda waa daawada keentay oo faraha ka baxdo guri kasta taala iyo meel kasta taala ma waxa keenay xanuunadii la yaqaanay oo faafaya keenay intaas marka hadda lama ogaa karo waxa sax dadku leeanayaan laakiin xanuunadii la yaqaanay hadda way ku jiraan meesha marka la fiiriyo oo laga hadlay hadda waxaan maleynayaa marka la fiiriyo guri ceel marka la yiraahdo cudurro hadda aan aaminsanahay inay ugu badan yihiin hadda diphtheria oo kale ama gowracatadii oo Soomaaliduna ay u yaqaanaanba qofka hadii ay ku dhacdo in guriga la dhigaba jadeecadii kamid ah oo qofka uu aaminsan yahay hadii uu xanuunsado inuu daawo lahayn guriga la dhigo xanuuno kale fara badan oo dadka qubanka barra iyo maxaa la yiraahdaa luga barar iyo magacyo fara badan loo baxshay oo qofka aan daawo loo ogolaan hadii leeyahay daawo taabtal leeyahay waa u dhimanaa marka laba shayba hadda way ka qayb qaateen in cudurradii faafaan dadkuna ay faham waayaan number 2 dadka caafimaadka gacanta ku dhigay oo ayagu dhaqaale ka sameynaya oo aan rabin in daawo dadkan daawobaan rabinba waa qodob koowaad waaye saan misanahay waaye sababta waxa waaye marka example u soo qaato waxa laga yaabaa inay furan tahay meelo ilkaha lagu baxsho meelo wax lagu sameeyo yani caafimaadka furan tahay waxa laga yaabaa qof inuu yimaado ilig laga bixina wax ugu yar waaye maalin kasta iliga la baxshaa markuu meesha yimaado waxa laga yaabaa inuu qabo hepatitis B inuu qabo hepatitis B danger waaye inuu faafo sax waa sababta xanuunadu waxay ku faafaanba waa dheecaanka dhiigii iyo faktarradan bahalla yar yar oo qaado qof inta ka qaado qof kale ku shubaya iyo maxay ahayday dheecaanada iyo waxaan ka hadlaa iyo fluidka caadiga xataa maadaama marka fluidkii iyo fluid waxa la jeedaa yani dheecaanadii iyo candhuuftii iyo dhiigii inta ay ku faafayaan markii qofkan inta loo yimaado maanta qofkan u yimaado asagoo qaba hepatitis B qaba ilig laga saaro oo biir inta la raaciyo meesha la dhigo oo haddana qof kale oo caafimaad qaba oo soo galo haddana looga saaray qofkaas hepatitis B ma qaadayo waa qaadaya exactly marka regular inay ku bataan hepatitis B
oo marka baartay marka waxa dhacda dhiiga maagnaa dadka shuba isbitaalada marka qof marka dhiig ka shubta laga yaabaa 10 qof hadii ku timaado 10 koodii waxa laga yaabaa 3 qof oo kamid ah inay qabto hepatitis B so this is outbreak waay dadkiina waaci uma ahan haddii marka meeshii la tago qofka marka yaa faafina marka dadkii ma yaqaana wuxuu ku faafaayo meelahaasna ma ahan meelo mas'uuliyad qaade ganacsi kiraasa ay rabaan in qofkan soo xanuunsado si uu qaataan so this is san aaminsana waaye inta kala dabacdi oo noqon doonta laakiin xanuunada qaabka u socdaan iyo dadku qaabka u dhaqmayaan waa laba shay aad u kala fog waaye waxaana keenaa wacyi darada traditionalka dadku waxay aaminsan yihiin dadkii waaweynaa xanuunadan waa loo la jiray waa la yaqaan haddii qofkan la sameeyo hadda foqtaan ma dhaweed kaysa ma dhaxana loo keenay fiir safir ahay runtii waxa ku dhacay xanuunkan gowracatada la yiraahdo waxa laga dhaadhacay isbitaal la geeyay isbitaalada gobolka degmada kamida wuxuu yiri daawo idin siina ma xidhan daawo lama siiyay guriga la geeyaa cunugan horta gowracata ma aha ma waxba lama daawo guriga la geeyna guriga la geeyay waa dhinteen ilmahaas kuwa kala ku dhacday guriga hadan la geeyay waxa la hal sugo inta oo iska roonaana dadkii waayeelka waxay leeyihiin cunuga lama daaweeyo soo dadku waxay fiirsanayaan wax ka dhigaysan waxa waaye dadka waayeelka fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun meesha ma taala waxa taala yaa soo noolaa jiray oo waday ah odayga marka la weydiinaya marka dadku waaci ahaan waxay dadku xoog ugu xiran yihiin dadkii traditionalka ah waa qodob kayskii markii dambe guriga la geeyay naqaska ku dhagay markii naqas ku dhigay qof kaan oo kormeeraha u tagay oo wasaaradda caafimaadka soo wuxuu ku yiri kayska wala daaweynaa laakiin adinka ogolaada waxay dhaheen waa ogolna laakiin kaliya hadda waxaan noo sameeyaan hadda hawada ku xiran marka bal naqaska xogaa ka fura bal waxa dhan isbitaal geey wala farmaan isbitaal hadda kuma hayna meesha lagu haynaa okay case good way waxa dhan hal daqiiqo noo ogolaada oo deprimentiga aan ugu sameeyno dhunta ka xiray oo noo ogolaadeen waa geeyay markii dambe waxa dhacday kayskii waxa dhan emergency ma ku dalbnay in daawadii la helo dabcan waxaan ka dalbnay meeshii la helo xamar oo naloo keenay waa siin dawjikood ma ku dhacaba cunugu waa fiicnaaday marka daawadii kale waa loo sii waday oo lagu talagalay dadka marka dadka traditionalka dadka hadda haysta waa qodobka labaad dadku marka ayaga asmaamulada dawladda ma maamusho sidii wadanku u burburay caafimaadkuna u burburay systemkiina waa u burburay marka waxa haysta traditionalka wali haysta systemkii waa qodob waxaan hadda iska socdaan waxa xakameynaa lama arko oo dabcan hawlaha guud oo haystaba xaaladaha qaar markay daawo taagan tahay waxay u baahan tahay awood dooliye footan hadda daris aan hoo kale wax kasta oo ku saabsan caafimaadku waa meesha ugu dambeeyay qofka insaanka uu haysto hadduu caafimaadka waayo nololka waa la waayay soo wadanka haddii caafimaadkiisa systemkiisa oo burburo caafimaadku waa la burburay marka anaga ama dawladda ha noqoto ama systemka guud ha noqdee ma jirto awood taakay sida meel kasta amnigii xataa gacanta lagu haysto caafimaadkan gacanta lagu haystaa qolob marka qolay haysataa waa marka awood u baahan tahay awoodis marka waa awood u baahan awood system dawliga u baahan waay oo la xakameeyo boqta let's example oo kale example waxa ibn raalaha cunugaas lama talaalin waxa la noolay ilmo la talaalay mana ku dhicin wala noolay ilmo la talaalay soo hooyinku u ogolaadeen haddii dawladda jiri lahayd qof kasta waa la talaali lahay mana ku dhicin adduunku waa laga soo cirib tiray hatta dawladaha dariska hadduu halkiis ku dhaco hatta alarm weyn la shidaa laakiin annaga maalin kasta